deganahay galbeedka sidoo adeer idin sheegay hadda markii hore waxaan deganahay Soomaaliya waxaan bartay maamulka iyo maareynta waxaan ku hadlaa luqadda Ingiriiska iyo Soomaaliga walaalayaal sanadkii hore waxaa laga qaatay golaha Portland halkaas oo Soomaali badan halkaas ku dhigay oday waxaan ka mid ahay hadda lixdan qof oo Portland maanta gaarto waxaan ahay qofka kaliya oo muslim ah Soomaali ah madow ah waxaa kaliya oo ku imaado oo muslim ka imaado ninka carabka oo baarlamaanka ku jiro asagana waxa waaye qaar ku soo galay toos u soo galay markii qof maqnaasoo baada horta waxaan qabaa dadkii inay fiiciyeen inaan meeshaan mar labaad ugu noqonin markaan ka hadlayo qaladkayga adeerku uu sheegayo waa sax adeer waxaan isla deganahay booliska sayidkaas kanalmeyki dadka igala shaqeeyo ku jiray wuxuu xaafadda isla degay wax badan ka qabta xaafaddaas xaafadda wax badan aan u qabanay meelo badan aan ka furnay dika waa balaxti meel oo ciyaalka lagu caawiyaan ka furnay hooyaskaaga waa ka furay adigay wax ma qaban karin xaafadahan waa ila qabteen xaafado badan oo helsiinka midna waa gaarsiiyey xaqiiqdii waxyaabaha laga faa'iidi jiro waxay ahaayeen in ciyaalka lagu caawiyo casharada looga caawiyo askari iskuulka ka dambe dadka waaweyn oo xaqiiqinaya iskuullada ay tuusata sidii ayroo kale ama tiyada dhammaan dadka dhan ay ka faa'iido kana faa'iidi jiray walaalayaal waxaan kaloo u samayn jirnay dhalinyarada iyo dadka waaweyn soo horeeya waxaa loo yaqaano shaqa baridda dadka ama tiyada ka yimaado dadka ka yimaado xafiis shaqada iyo ardayda ciyaalka yaryar oo garaaska sagaalaad oo mensi kaabinka oo sii jiray xaafka oo keesaha aan u samayn jirnay dhammaan waxaan ugu samayn jirnay bulshada dhan way ka faa'iidi jirtay iskuulka dambe dhalinyarada waxay ku ciyaari jireen tiim iyo wax walba iyo playstation garoomana waa ugu qaban jirnay meelaha aan ka qabto waxaa ka mid ah boohiyasaaga kanalmeyki maalmikaarkana laayasaro tooseere awrinka laasi marka xaqiiqdii waqti badan ayaan geliyey dhalinyarada iyo xaafadaha waxaana weligay jeclay inaan arrimaha bulshada ka shaqeeyo aniga kaligayna ma qaban karin waxaa iga caawiyey ururkan aan ka shaqeeyo oo ilaa Yurub hadda arrimaha aan ka sameyn waa arrimaha Yurub dhalinyarada Yurub waxyaabo badan aan ka qabtay marka waxaan rabaa inaan ku xiro barnaamijyada ayaan dhalinyarada uga waayay wadamada arjiya waxaa ka mid ah Macedonia Turkiga wadamo oo muslimka uu ku badan yahay wadamadaas Macedonia waxaa waaye haaf ayaa muslim ah Turkigana waa ogtiin waa 90% dhalinyarada wax badan ay kusoo faa'iidayeen kusoo baranayeen kadibna ugu soo sameynay ururo badan oo Yurub aan wax wada shaqeyn leenahay oo ka mid yihiin ururadaas ay ka tirsan yihiin Portugiiska Poland iyo wadamo kale marka walaalayaal muhiimadda halkaan u soo istaagay maanta waxay tahay shalay sida ay caawiseen inaad ii caawisaan ugu garab gashaan codkiina anigana sidaan ayaan idin soo istaagaya meel kastana waan tegey masaajidada waa la shaqeeyey bulshada qayb walba ay tahay waan la shaqeeyey haddana waa idinla shaqeynayaa diyaarna waxaan u ahay maaragtay inaan wada shaqeynta sii wado waxaan rabaa oo hadda halkaan ka ballan qaadaya inaan waxyaabo badan ka qaban doono Helsinki oo ay ka mid tahay inaan Helsinki iyo Muqdisho labada caasimo inay wada shaqeeyaan dadka Helsinki degan oo cashuur bixiyaalkan ay kawbungiga ay cashuurta ka bixiyaan ay uga faa'iideeyaan walaalahooda kawbungiga aan la fadhiisano bulshada iyagana maaragtay sidii ambalaasyada iyo arrimaha isbitaalada iyo ay uga faa'iideeyaan siiyaan caasimadda kale labada caasimada wada shaqeeyaan barnaamijyo badan oo wada qaban karnaa walaalayaal haddii aan gacmaha isqabsano
wax walbana waxaa waxa lagu qabtaa in gacmaha la isqabsado marka waxaan rabaa barnaamijka inaan halkaas kusoo gudbiyo sababtay tahay maaragtay waxka waa si dheeraana wixii su-aalana waa idinkaga jawaabayaa waana mahadsantiin walaalayaal